Assalaamu calaykum akhyaarta kusoo dhawaada mar kale hadda waxaan sameynayaa setup breakdown oo aan ku helay 16,000 for the month of September oo labadii payout bishan ka kala helayna waa kan oo 5,011k ay kala yihiin. Actually tiradan waxa weeyaan waxaan la qabsaday after 2 years consecutively aan u arkayay dhibaato badan baan u soo maray iska culays bay ahayd laakiinse if you stick to it oo aad u sabartid oo u dulqaadatid oo aad oo waqti aad siisid waxaad arkaysaa casaankii oo isku bedelaya akhtar all the losses oo win isku bedelaya adigoo khaladaadkaagii wax ka baranaya adigoona same mistake every trade aan sameyneen every day waad ogtahay khaladaadkaaga but you just keep repeating instead of learning. So dad waqti isyaran gelisid oo si strategic ahaan aad u fadhiisatid oo tiraadid okay khaladaadkan gelayo waan garanayaa but why do I keep repeating? Imso qof baa gasha trade ay ogtahay inuu setupkaaga ka mid ahayn but you still waad galaysaa just to see inaad badisay iyo inaanad badin xitaa haddaad badisay you know inaanad setupkaaga raacin oo aad ku khaldan tahay. Aniga dad badan bay iga oran jiray waxani waa time waste, why don't you go to school, why don't you study? So mataqaanid laakiin after many years of losses markaan fadhiistay oo si xaqiiqatan isku eegan iraaday you need to change your ways waa inaad eegtid khaladkaad sameynaysid because faa'iido ma ka helisid inaad chase garaysid just wins laakiin waa inaad haysatid setup xitaa haddaad loss garaysid ku oranaya maanta waad fadhiisanaysaa xitaa marketku hadduu fiican yahay oo dad badan lacag helayo and follow the rule adigoo aad haysatay ee aad dhigatay ee setupkaagu kuu sii sheegayo. Asxaabtayda dad badan baa igu lahaa de maxaad waxaan u wadaa jaamacadaada madgashid oo iyaguna lacag bay helayeen anna meeshaasaan fadhiyay working 10 hours every single day warehouseka so mataqaanid but I stayed consistent throughout the years so mataqaanid alxamdulillah hata for 2 years waxaan ahaa green days nearly every month so mataqaanid not every day sidan ah maalmaha qaar way ka badan tahay maalmaha qaarna way ka yar tahay but laakiin ruleka marka raaco aan study gareeyay khaladaadkayga I'm more consistent than I ever was. Waxaan ku dhaatay isbedelena ma aha setupka. Waan idin tusin doonaa maalin setupkan qaadan jiray markaan bilaabay trading iyo hadda it's like almost 70% waa the same. Waxa ugu weyn ee isbedelay waxa weeyaan just the discipline iyo psychological mindsetkayga. Idinkuna dad badan baa garanaya waad garanaysaa markaad winning trade aragtiin you know the criteria waad garanaysaa setupkan waa setup fiican waad garanaysaa haddana at the same time gelinka dambe waxaad galaysaa trade aanad reason garanayn waxaad u gashay oo dareen umaad ku gashay setup kumaad gelin maxay ahayday criteriaaga muu buuxinin but still waxaad rabto inaad gashid si aad u dareentid marxaladan aan ku jiro waan ka bixi karaa taasna waa khaladaad badan iyo in my opinion big time waste waxaa markaa lagu qaatay inaad iska daysid haddaanad rabin inaad discipline yeelatid. Tradeska badankeedana waxaan soo dhigdhigaa maxay ahaday tradeyadan qaadanaya iyo discussionada iyo linkyada waxaan soo dhigaa groupka GN Trades on Telegram oo iska free ah ugu talagalay xagga saad u aragtiin de real market ka saa loo trade garayo not waxaan maaha influence trade waxani waa real trade real money real accounts so mataqaanid of course ma aha de tradeskan dadku ay iska galgalayaan oo ay qaabanayaan 1 pip stop loss oo soo ay qabsanayaan 100 pips waxaas realistic ma aha de like every day ma realistic badanka moveska maalintiiba dhaca waa medium minor move weeyaan oo dadka badanka maxay ahayd traderka xaqiiqada ah ka qayb qaataan so this is real trades ma aha influence trades. So subaxii markaan soo fadhiistay pre-marketka waxaan calaamadsaday logayga iyo highgayga oo aniga sell side-kaygu wuxuu yahaa xaggan this is the pre-market before New York Open 8:30 hadafkayguna wuxuu ahaa waxaan arkayay waxaan rabay inaan daawado marketku miyuu rabaa inuu sell side-kan u qaato mase uu meereysani mase maxay buy side-kan ka wadaa mase sell side-kan what you want to do anigu ma rabay inaan marketka idea-gayga afkaartaydan ku qasbo laakiin iyadaan rabaa inay tusiso waxay rabto inay samayso so most of the time waxay kusoo base garaysmataa tradekaagu waa patience oo ma aha inaad guursatid afkaartaada so you have to wait
and patiently see marketku muxuu rabaa, incentive-kiisu waa maxay, sidee buu rabaa inuu dhaqaaqo, maalin macquula ma tahay, iyo confluenceskaas oo dhan adiga over time waa iska arki doontaa. So waxa ugu fiican aad samayn karto most of the time inaad trade gashid, winning trade ama loss trading gashid maaha, laakiin waa inaad patient ahaatid oo aad aragtid marketku dhankuu rabaa inuu dhaqaaqo, incentive-kiisu waa maxay. So marketka markaan usoo fadhiistay waxaan calaamadsaday buy side-ka iyo sell side-ka, oo waxaan sugayay marketku dhankuu rabay inuu u dhaqaaqo, ma equal high-gan oo ah relative equal high or this sell side-ka. So aniga labadaasumaan sugayaa intuu marketku incentive dhisayo, either way ma xaggan saruu rabaa inuu dhaadhaco, or does it want to go to the downside, oo inuu weeraro sell side-ka hoose. So marketku markuu furay at 8:30 haddaad arkaysiin, immediately wuxuu u cararay xagee the relative equal high-ga. Laakiin before that marketku wuxuu sameynaya accumulation buu sameynaya exactly at candle-kan oo ah midnight New York Open, oo xaggaasu ku meereysanayay oo incentive buu ku dhisayay, oo xaggan accumulation phase-kii weeyaan. Intan aad arkaysiin waa accumulation phase-kii for the displacement to take up kuwa buy side-ka fadhiya ee faa'iidada ku fadhiya. So hadda intan aad arkaysid oo dhani waa meeshuu ka dhacay maxay stop hunt-ka, area-han oo dhani waa meesha stop hunt-ku ka dhacay ee lagu qabsaday kuwii short galay ee iibiyay marketka u maleynay inuu marketku hoos u sii socdo, ayuu hadda marketku punish gareynayaa. So hadda marketka markuu sidaa buy side-ka u qabsaday wuxuu noogaga tagay relative equal high at 8:30, haddana hoos buu u dhaadhacay markuu relative equal high-gan u qabsaday. So marketku markuu furay at exactly xaggan oo ah 9:30 opening-a, hoos buu u dhaadhacay marketku, and this is what we call the Judas move. So mataqaanid waa Judas move, waa the fake move marketku dadka raba inuu ka dhaadhiciyo haddaan hoos u dhaadhacanaa ee trade-ka ka qayb qaata. Laakiin haddaad aragtid marketku miyuu qaatay lowgan iyo lowgan? No, xitaa mabuu qaadaninba midnight opening-a. So dad badan baa hadda oranaya buy side-kii waa la qaatay, fair value gap baa xaggan nagala tagay. If you can see this fair value gap kan yar xaggan aan calaamadeynayo, kan iyo kaas xaggan waa fair value gap. Dadka badanka setup-ka xaggaasi ka galayeen waxay oranayaan this is the setup aan baranay, sababtoo ah buy side-kii baa la qabsaday, 8:30 Judas move-kii baa la sameeyay, fair value gap-kana trade-ka ka galayaa. So trade-kii xaggan ay galeen, hoos bay u dhaadhaceen, waxay lahayeen okay now we good, we are safe. Laakiin haddaad fikirtid fair value gap-kani xaguu ku yaalaa relatively from this low iyo high-ga, xaguu ku yaalaa? Wuxuu ku yaalaa premium or equilibrium. Laakiinse markaad short tahay waxaad rabtaa inaad ku iibisid on premium, discount maaha. Marka haddaad hadda aragtid aaway fair value gap-keena ku yaala premium price, haddaad yaro fikirtid eeg this one inversion fair value gap-kan ayaa ku yaala premium, kani kuma yaalo premium, waa either equilibrium ama discount buu ku yaala. This is not a good price marketka lagu geli karo right now. So haddaad aragtid marketkii kuwii xaggan ku galay oo kale uu liquidate gareeyay, premium price-keenu soo galay, inversion fair value gap-kan, stop loss-keenu waa xaggan. Intaasoo dhan waan sugaynay markuu marketku intuu dhaadhacay. Hadduu sell side-ka gali lahaa bas maalintu way noo dhammaan lahayd, we are done for the today. Trade-kaasi nagamuu khasaarin, laakiin criteria-heena muu gelin, so we don't care about that. But here was our entry-ga aanu ka galnay trade-ka. Our target is these lows, ama kuwan oo iska ah iyaguna relative equal low-gan cusub aanu target kareynano. Marka haddaad arkaysiin price-ku xaggan markuu saa usoo gaadhay, immediate reaction kanaad aragtid like melted, hoos buuba u dhalaalayba bahalku markuu premium price-ka galay. Kuwan uu liquidate gareeyay, maxay ahayd kuwana fake move u geliyay, buy side-kana uu la pair gareeyay, short-ka ay galayeen smart money-ga.
so dad badan FOMO bay gelayaan oo iyagoo leh price ku iga cararaya hadda maxay sameynayaan. So this is part of the plan inaad patient ahaatid, criteria-haaga raacdid, premium aad ku gashid markaad short gareynaysid. haddaanad move-ka ka gaadhin ama aad ka habsaantid ama uu ka cararo, what's your plan? waa inaad plan wax kasta aad u yeelatid. And that's where patience comes in, iyo discipline. waxaa ku dhaatay isku dhaafay, it's not the setupkani ma aha de wax revolutionary ma aha, laakiin you have to combine dhowr shay oo inaad isku xidhxidhid that will make the perfect plan for qof kastoo gooniya. iyo waxaa nice a lot to do with psychological ahaan maskaxdaada inaad qof sabir la yeelatid, criteria-haaga raacdid, iyo degdega badan aad iska daysid. So for this month course-kan ku lahaa waan soo dhigaya, waxaan soo dhigaya insha Allah bishan gudaheeda October. So diyaar ahaada, get your books ready, be ready to study inaad wax baratiin, because I've been in this market long time, lost a lot of money, almost 16k baa iga khasaaray because knowledge fiican maan haysan, base fiican maan haysan. But if you can get that oo aad source gareyn kartid waxa xaqiiqada ah real market iyo fake marketka, waqti badan baa ku save gareysmaya, and to be honest a lot of money. So be ready because waxaan drop gareynayaa, this course is gonna be very good, very simple, haddana at the same time deep, laakiin wax badan baa ka baran kartaan. haddaana dareemayn inuu faa'iido kugu jirin, adaa isla markiiba arkaya badan on the real market if it's beneficial or not. So inshallah be ready in this month of October.